حسن waxaan salaamayaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan kaga hadlaynaa hadalkii uu Cali Khalifiiri ee ahaa madaxweynaha laga doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo inuu yahay madaxweyne xamar waxaan leenahay madaxweyne xamar ma aha madaxweyne Soomaaliyeed waxaan ka raaligeynaa hadalka uu Cali Khalifiiri waxaan ka raaligeynaa dhamaan Soomaaliya oo dhan baarlamaanka iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed iyo dhamaan shacabweynaha Soomaaliyeed waxaan leenahay hadalka lama qabno Cali keligii ku yahay waan ka raaligeynaa Soomaali waxaan leenahay hadalkaas waa hadal uu iska yiri innakum maracsana innakum matalo cid matala ma jirto waxaan leenahay madaxweyne Farmaajo aadan ka raaligeynaa hadalka iyo dhamaan Soomaaliya oo dhan iyo dhamaan xildhibaanada Soomaaliyeed annaga oo madax go'ay haddaan nahay umada ku dhaqan sool sanaag yacayn Cali Khaliif waxaan sheegayaa waa nin daad qaaday xumbuuskay nin matala maaha nin umada Soomaaliyeed matala maaha aad iyo aad baan ugu raaligeynaa umada Soomaaliyeed meel kasta joogto kuwa xamar jooga kuwa Hargeysa jooga qayb laftigooda uu ku gafay waayo umada Soomaaliyeed weey meel kasta wax af Soomaaliya ku hadla meel kasta jooga uu ku gafay hadal gafa weey hadal aan taageersanahayna maaha halkan waxaan ugu hambalyeynaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha Soomaaliyeed ilaa ka gees wixii afka Soomaaliya ku hadlo madaxweyne uu yahay aad iyo aad baan ugu raaligeynaa haddaan nahay bulshada ku dhaqan gobolada sool sanaag yacayn annagu Soomaali ma nahay ka daranta waxa gaf labaad annaga nagu soo wuxuu yiri Sinaayo dalkiisa dhaxal buu uga tagay annaga dhaxal naguma tagin agoon buu nooga tagay waayo dadka iyagii waxa suuqay oo baabiyay Soomaaliyana dad wada maaha calina cidna ma batalo madaxweyne Khaatmana maanta laga bilaabo maaha umada Khaatm way jirtay waa sool sanaag yacayn oo magac jiro weey laakiin Cali Khaliif Galeed wuxuu watay maahan wax Hargeysa la tagayna maahan halkan bay la jooga Cali Khaliif Galeed umada Soomaaliyeed oo dhan baa dhubaanto oo dhan baa Khaatma oo magac Khaat sida loo wada yaqaan sool sanaag yacayn bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaynu halkan ku qabanaynaa war saxaafadeed aan ugu talagalay inaynu arrimo dhowr qodob kaga hadalno marka ugu horeysa bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan fursadan qaaliga aan kaga faa'iideysto hambaliyana u diro madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne waxaan ku leenahay hambalyo baan ku leenahay anigoo ku hadlaya magaca dadka degan gobolada sool sanaag yacayn madaxweyne waxaana deeqda waxa ummadda Soomaaliyeed gobolada kale ku nool deeqa waxaana deeqa midnimadaana deeqda waxaana deeqda cadaaladda buuhoodle iyo ceerigaabay iyo laascanood waxa u dana oo deeqa waxa bay iyo boqol deeqa marka aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa aad iyo aadna waa kugu soo ducaynaynaa qodobka labaad waxaan rabaa halkan isna inaan kaga hadlo hadal ka soo yeeray mas'uul Cali Khaliif Galeed oo uu yiri madaxweyne Farmaajo wuxuu madaxweyne u yahay xamar hadalka mid aan ku raacsanahay maaha mid uu mas'uul nagaga yahay maaha raaligelinna waan ka bixinaynaa haddaanu nahay dadka gobolada degan hadalladaas waa hadaladii looga bartay Faysal Cali Waraabe iyo dadka Soomaaliyeedka markii horeba Soomaaliya wanaageeda ka nixi jiray hadalkaasi mid aan ku raacsanahay maaha waa mid aan aad iyo aad uga soo horjeedno cambaaraynana marka madaxweyne raalli baad ka noqonaysaa qodobka saddexaad ee aan rabo halkan inaan kaga hadlo waxa weeyaan Cali Khaliif wuxuu yiri Sinaayo dhaxal buu uga tagayaa dadka gobolada degan waa run dhaxal buu uga tagayaa dhaxalku uga tagay waa dhac dil boob iyo agoomo fara badan oo ku nool deegaanadan weeyaan dhaxalka uga tagayaa waa dhaxalka dhabta ee Sinaayo uga tagayaa dadkan waa mid aan lagu ilaawi doonin isaga iyo wixii la geystayba waa mid lagu daba socon doono in alle inta ay gaari doonto marka dhaxalka uu Sinaayo ka tagay ee magaciisa ku qoran iyo maamulkiisaba waa ka Soomaali kala fogeeyay ee kala qoqobay agoomaha badan maanta ku abuuray gobolada sool sanaag yacayn qodobkaasina waa qodobka dhaxalka uu Sinaayo ka tagay magaciisa ku qoranta waana ku waday 30 sano la soo dhaafay ugu dambeyntii waxaan rabaa halkan inaan iyana aan mas'uuliyiinta u soo jeediyo mas'uuliyiinta gobolada sool sanaag yacayn ay ugu horeeyaan garaadada
cuqaasha siyaasiyiinta inay si degdega uga hadlaan siyaasadda gurracan ee marin habowga ah ee uu cali khaliif kula shiraakoobay maamulka Soomaaliland waa in si degdega qof kasta oo midnimada Soomaaliya iyo magaca gobolada Sool Sanaag iyo Caynba qadarinaya waa inuu aanu qarsan wax la qariyo maanta way ka weyntahay waxa cali khaliif wado waa in si degdega looga hadlaa oo waliba garaadada ugu horeeyaan dadka ka hadlaya bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa waxaan ahay Axmed Cawil Bacalul Suldaankii gobolkan Buhood la joogay oo Buhood laba dhinac oo dawladda Itoobiya dhinac degantahay dhinacna xuduudda Soomaaliya waxaan u hambalyeeynaa madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan ka diraynaa raaligelin hadalkii ka soo yeedhay ninka odayga ah ee Jabuuti ka hadlay ee guriga Buhood la ka tagay ninka raaligelin baan hadalkiisa ka bixinaynaa xalay waxaan daawanayay Mandheero shacabka Kenya oo alla bari dhigayo oo dhinaca soka ee Mandheero Soomaaliya geel keenay cid kasta oo muwaadin oo geeska Afrika ku nool waxa weeye mahadcelintaasay diraysay waa ninkii kaliya ahaayo isagoo oo maartay deegaamadan ka soo jeeda sida u hadlay aad iyo aad baan boolojis uga bixinaynaa hadaan isimada dhaqanka iyo deegaanka Buhoodle raaligelin baan ka bixinaynaa aad iyo aad yaan naloo maqlin ninka la yiraahdo madaxweyne Siilaanyo wuxuu yiri dadkiisa wuxuu uga tagayaa dhaxal Buhoodle 247 qof buu sanad gudihii ku dilay arintaana waxaan leenahay in beesha caalamku waa kula xisaabtamaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan uga hambalyeeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ilaahay waxaan uga baryayaa madaxweynihii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa anfacay inuu noqdo madaxweynihii Soomaaliya ilaa raas casir ilaa raas Kamboni isku xidha ilaahay inuu ka dhigo kii xilkiisa ku astura ilaahay waxaan uga baryaynaa waxba uma qaban karna ilaahay sida loo doortay inuu hawshiisana u qabsado ilaahay arrimihiisa isu gaarsiiyo waxaan kale ka hadlayaa laba qodob hadaanu nahay anagu waxaan nahay bulshada reer Caymeed gaar ahaan Sool iyo Sanaag iyo Cayn ninka la yiraahdo Cali Khaliif madaxweynaha iyaga Khaatumo State of Soomaaliya ayuu ahaa hadeerna xilkii wali uu noo hayaa balse isaga ayaa wuxuu ka hadlay dhalooyinka meeshii uu hambalyeyn lahaa madaxweynaha Soomaaliyeed Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayuu wuxuu yiri wuxuu yahay madaxweyne Muqdisho waxa weeye madaxweynaha Farmaajo uma aha Muqdisho madaxweyne wuxuu yahay Soomaaliya oo dhan ayuu yahay ilaa Somaliland ilaa Kismaayo ilaa Puntland ilaa 18 gobol ee Soomaaliya ayuu madaxweyne u yahay waxa weeye qodobka labaad wuxuu yiri Cali Khaliif waxa uu Siilaanyo uga tagayaa Somaliland dhaxal annagu hadaan nahay reer Caymeed dhaxal nooga muu tagin wuxuu nooga tagay agoomo annagu asaysidno walaal weynay lafaha yagina maalin walba nin aanu intaan masiirkayaga u dhiibanay aanu soo dabalayna ayaa inta lafii meedka ka sii talaabsado Somaliland kufeemkeeda u buuxiya waxa weeye annagu hadaan nahay bulshada Sool Sanaag iyo Cayn madaxweynaha aanu doorano anagoo aan dhulka dhigin oo ka hor iman oo aanan mucaaradin yunin waliba ama Puntland iska dhiiba ama Somaliland iska dhiiba waayaan daro ishaday British yihiin haday mutacallin yihiin haday waay arag yihiin haday isma yihiin haday niman goboladoodii jooga maalin walba iyagu hoos tagayaan waa iyaga dadnimadooda annaguna waxa weeye federaalkaanu ku xidhannahay hadalkayaga aanu ka qabno madaxweynaha Soomaaliya iyo hadalkii shalay ka soo yeeray Cali Khaliif madaxweynaha marka hore madaxweynuhu guul Soomaaliya ha israacdo waa wiil nafsi oo ilaahay noo keenay ayaan u arkaynaa hambaliyo kaliya laaba oo guula baan u rajaynaynaa waxaanu xaal ka siinaynaa hadalkii Professor Cali Khaliif Galayd uu shalay ka soo yeeray ee ahaa madaxweyne wuxuu yahay koonfur waxaanu leenahay madaxweyne wuxuu yahay waxa laala wixii ummadda afka Soomaaliyeed ku hadla ilaahay idinkii buu yahay hadalka kale aan ka hadlayaa waxa weeye
هذا الكي شلي على خليفيري سيلانيو سوماليلاند wuxuu kaga tagay dhaxal hadii على خليف سيلانيو uga tagay dhaxal annaga agoomu nooga tagay dumar wata asay xambaarsan buu nooga tagay waxaanu leenahay ku ogaanay cadow inaad tahay wayse waa qof walba taariikhda qori adaa oran jiray taariikhda qoriye taariikhdu aday dib ku qoraysaa waxaan inta ku darayaa waxaan filayaa buuhoodle gobolka cayn professor ninka madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waa dal u yaqaano waa dal aqoon u leeyahay waa nin Soomaaliyeed oo mawaadil oo Ilaahay iyo ummadiisa jeceliin qofka marka ummaddu jeclaato Ilaahayna waa jecel yahay waxaan leenahay wixii hore ka dhacayna waad maqlaysay wixii maanta fikirkayga maantana waad maqlaysaa waxaan leenahay xaal baanu ka siinay saku si ku diirin mayso waxaad ka tahay waxa aabihii Soomaaliyeed farmaajo nooga dhigay madaxweynaha waxa kan la yiraahdo waan madaxweyne Soomaaliyeed oo waxa kan leeyahay shicib baa doortay madaxweyne waxa weeyaan muqaddisa oo loo baahna oo muddo dheer la sugayay ninka yiri waxa kan leeyahay xamar buu matalaana waxa weeye kuma raacsanin hadalka uu yiri mana raacsanin haduuna madax goosta iyo haduuna madax goosanba wax aan kula socono iyo wax aan shaqo ku leenahay midna maaha waan hambalyeynaa waan soo dhaweynaa waa isagan sugeynaa tan labaad ee uu yiri waxa kan leeyahay Siilaanyo dhaxal buu uga tagay madiisa dhaxal buu uga tagay reer Soomaaliland dhaxal buu uga tagay laakiin anagu Soomaaliland manhin dhaxal loogama tagin agoomo iyo guryo baay iyo waxa kan leeyahay xasuuq iyo asay iyo waxa kan leeyahay guryo maran buu nooga tagay iyo beeba la mariyo carruurta yaryar iyo maatada ayuu nooga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan jecelahay inaan halkan kaga hadlo waxa la yiraahdo madaxweyne ninka la yiraahdo cali khaliif galayd oo aanu hadalkiisa ka maqlaynay bariyahan ba waxa la yiraahdo hadalla isdhaafsan oo aanan sidii looga bartay aan ahayn haddii aanu nahay bulshada gobolka Cayn ama Buuhoodle waxa weeyaan anaga nama matalo waxaan uu sheegayaan shacabka Buuhoodle ma matalo shacabka gobolada SSC ma matalo annaga madaxweynaha la doortay maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo waa madaxweynaha waa madaxweyne Soomaaliyeed waan soo dhaweynaynaa markasta hiliyo hoobaan la garab taaganahay hadalka uu leeyahay cali khaliif waxa la yiraahdo Siilaanyo dalkiisa dhaxal buu uga tagay haddii uu Siilaanyo dalkiisa dhaxal uga tagay annaga dalkayaga ma matalo annagu waxaanu nahay khaatumo waxaanu nahay dad Soomaaliyeed mar walbana maxaan ku dhahday waxaan la garab taaganahay Soomaaliyeed iyo soo dhow baan leenahay madaxweyne cid uu matalo oo hadalka iyo wada hadalladan iyo hadalkan uu wada ku matalana ma jirto haba yaraatee waxaan leenahay dadka shacabka ah ee ku abtirsada gobolada SSC ama khaatumo waa in aad ka fiirsataan cidda aad maxaan ku dhahday masiirkiina maxaan ku dhahday u dirsanaysaan hadda waad aragtaan hadallada meesha ka soo yeeraya baryahan dhan waa la arkayay dad baa wali ku dhagan oo maxaan ku dhahday hadalka wali aad arkaysaayoo le maxaan ku dhahday waa madaxweynihii khaatumo waxaan leenahay madaxweynaha khaatumo ma aha khaatumo haddii madaxweyne loo dooranayo waxa weeyaan waa madaxweyne laadahay dadka shacabka ah reer Buuhoodlena waad arkayseen sidaad horeyba u arkayseen way soo dhaweeyeen wayna soo dhaweyn doonaan wayna mar walbana hiliyo hoobe la garab taagan yihiin waad mahadsantihiin dhammaantiin maan raxiin halka waxaan kaga hadlayaa laba kelmadood oo uu yiri mid cali khaliif yiri iyo mid aan ugu hambalyeeynay madaxweynaha Soomaaliya farmaajo oo aan ka xanaaqnay Soomaaliya muqdisho quseeyaan farmaajo inuu muqdisho quseyn baan u sheeganaa hadaan nahay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Cayn nooma qusayso hawshaasu uu cali khaliif yiri annagu waxaan nahay Soomaaliya hoos tagnaa madaxweynaha Soomaaliya aan taageersanahay in badan waan sugnay madaxweynahayaga haddana ninka leeyado cali khaliif wuxuu yiri Siilaanyo dhaxal buu uga tagay Sool Sanaag iyo Cayn dhaxalka uu uga tagay waa xasuuq iyo kaara la mariyo iyo beeba la mariyo iyo agoomo iyo asay iyo dhuldoon dhulkayga u barxo ku haysto annaga dhaxalku nooga tagay dhaxalkayga kaas weeye cali khaliif uu sheegaya haddana cali khaliif nooma maqna annaga namana matalo
dadka khaatumana ma matalo reer sool sanaag iyo cayn ma matalo waxna isuma nihin madaxweynena noo maaha bismillaahi raxmaan raxiim aniga magacayga waxaa la yidhaha Caasho Jaamac waxaan ku jiraa bulshada buuhood la joogta dadka ololeeya dhaqdhaqaaqana waan ku jiraa cali khaliif hadduu yidhi siilaanya dhaxal buu nooga tagay ama wax buuna taray siilaanya waxna ma tarin agoon iyo meyd iyo geeri buuna taray isaguna waxna ma tarin hadduu u tagay Soomaaliland nama matalo namana khuseeyo waxa la waxaanu sunahayna ma jirto meesha joogo ee jira hadarta ku maqnaado halkan loogama baahna mar hadduu saa sameeyay siilaanyana annaga Soomaaliland waxa la waxaynu haysan ma jirto colaad iyo dhiig iyo waxa naga dhaxeeya cadownimo oo ay iyagu nagu sameeyeen anagu ku sameeyno noola yimaadeen marka farmaajo taageersanahay dawladda xamar baan taageersanahay madaxweynaha iyagii Soomaaliya aanu nahay ka goymayno kana tagmayno isagaan hoos joognaa iyo ilaahay waanu ku dhimanaynaa anagu ilaa daraawish waxaanu dhimanaynaa calanka Soomaaliyeed hadeerna waanu u dhimanaynaa kamana tagayno kamana tanaasuleyno isagu meeshuu isugu uu dantii u gartay cali khaliif meeshuu dantiisa u gartay ha qabto annaga nooma yaalo isagu cali khaliif nooma yaalo faysal cali waraabana nooma yaalo faysal cali waraabe hala joogo ha iyo silayada iyo bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxaan uga hambalyaynayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo guulayso 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 farmaajo daacad baateena daadehe farmaajo daacad baateena daadehe dawadii Soomaaliyeed oo la doortay noqo daruur soo curatay oo unka deeqda noqo daruur soo curatay oo unka deeqda noqo dadkii la gumaysan jiray kii u dooda noqo aqoonta dalwaysa kii wada daryeela noqo tahriibka lagu daatay kii dayru yeela noqo farmaajo guulayso weliga hageeriyoon farmaajo guulayso weliga hageeriyoon geesigiino kacow gula badan xaree waxaan halkan ka jawaab celinayaa madaxweynihii khaatumo cali khaliif gayd oo hore waqtigiisii uu u dhamaaday sanad baa u haray sanadkiina isaga ku ciyaaray hadda laga bilaabo madaxweyne nooma aha khaatumana ma matalo madaxweynena nooma aha annagu ma raacayna siilaanyo dhammaan Soomaali weyn waan salaamayaa ma kala soocayo sawrac weeye qura sinji maguurana iyo sumadaya ku taal samada calanka weeg ba korkooda suran midkii Soomaali diidan saraynaya dagaalka midkii saxeexan saraynaya midkii sabiyaasha laayan saraynaya sidii siilaanya surin baan ku odayaa annagu waxaanu nahay Soomaali weyn baanu u dhimanay calanka Soomaaliyeed baanu u dhimanay calanka Soomaaliyeed baa dhiigayaga u qubtay ilaa daraawiish calanka Soomaaliyeed baanu u dagaalamaynay annagu ma doonayno Soomaaliland dooni mayno gooni u goosato dooni mayno ma doonayno gooni goosi dooni mayno Soomaali la kala qoqoba dooni mayno in la kala googooyo dooni mayno Soomaaliya waa mid Soomaaliya ha guulaysato Soomaaliya ha guulaysato annagu madaxweyne waxa noo ah Maxamed Cabdilaahi Farmaajo xaqayaga hana siiyo xaqayaga sidii Xasan Sheekh Maxamuud u awday yuusan nooga awdin hana siiyo xaqu Xasan Sheekh Maxamuud naga awday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo aanu ka sugaynaa cali khaliifna maanta laga bilaabo madaxweyne nooma aha khaatumana ma xukumo sool sanaag iyo cayn ma xukumo siilaanyana ma raacayno Soomaaliland ma raacayno mana raaci doono geesinimada idinka lahaa lama gudboonayne geesinimada idinka lahaa lama gudboonayne idinka guyaal gafanaan jiray idinka gamaankii fardaha gardiga waday ingiriisna idinka gambiyay goshashkii hore idinka talyaaniga in badan dabagal olay wargaalkay u daba maydhayeen wadigii gubay
gobanimaada adiga dhashado golashaw qalay gardahida dhulbahantaw sidee saylacuugu guurtay googaraad siduu kuugu xidhay gocorka iyo doorku googaraad siduu kuugu xidhay gocorka iyo doorku anigoo la yidhaaho qorshe maxamed jaamac faarax waxaan u sheegayaa waxaan u hambalyeynayaa marka hore madaxweynaha cusub ee la doortay maxamed cabdilaahi farmaajo ilaahay garabkiisa ha galo madaxweynihii aanu ku diirsanay weeye isbeddel baanu ka rajaynaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa mid diinta islaamka nagu xukuma oo cadaalad ku shaqeeya in ilaahay ka dhigo marka labaad annagu haddaanu nahay dadka reer buuhoodle sool iyo sanaag iyo cayn jooga madaxweyne cali khaliif galaydh maanta laga bilaabo madaxweyne nooma aha waxaa weeye wixii lagu wada socday ee dhulbahanta ku heshiiyey ee wax lagu dhistay ee uu shalay ku hadlayey wuu ka baxay maanta laga bilaabo nama matalo ninkii waxaan u sheegayaa cali khaliif kii shalay lahaa aniga waxaa hargeysa yaallaa ima deeqaan somalilandna xilu doonan maayo xirsi muxuuaha madaxweyne wasiirka somaliland ee arrimaha gudaha xirsi u doonan maayo xil weeye ma shalay buu waalaa mise maantuu waalan yahay ma shalay buu khaldanaa mise maantuu saxan yahay